anoo kale ma guulaysto adoo kale hadduu doorto waan arkaa is-arageeni in aan keli ka mahad sheegtay balse waa adduunkeena in aad ruux ku jecel diido ood intaa u ooyeyso midaan adi ku doonaynin heestan waxaa qadaya Mustafa Dollar ana kale ma guulaysto erayada garsoor jacayl laxanka Mustafa Dollar music furinle kamera liibaan dahir qadar waqal editing qadar waqal directed by Mustafa Dollar jilitaanka Maxamed Indo jacayl Naciima Maxamed Mubarak Mareeya soo sarista afro waqal furine qoraalka waxaa qoray Mustafa Dollar aniga idiin soo tabinayana waa Marya Adan Xaaji fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir mahadsanid heestan waa qiso dhab ah waxaana laga sameeyey sheekada wiil dhalinyaro ah oo saaxiibkii kala wareegay gabadhu jeclaa gabadhaasoo ay wada socdeen muda ku dhow 2 sano intay wada socdeena wuxuu baray saaxiibkii oo aad ugu dhowa waxayna ahaayeen kuwa asxaab ah hase ahaatee maalin ayay isku dhaceen oo dagaal ayaa dhex maray dagaalkoodina aad ayuu u xumaaday kadib wiilkii wuxuu ku fakaray inuu la ficiltamo saaxiibkii waxaanu weerar uu ku qaaday gabadha u jeclaa saaxiibkii isagoo u soo bandhigtay jacayl iyo rabitaan wuxuu shukaamiyaba wuu ku guulaystay wanay aqbashay oo si fudud ayay ku ogolaatay waxaa ogaaday wiilkii gabadha jeclaa inay xidhiidh la wado saaxiibkiisa hore waxaanu weydiiyey arrintaa uu maqlay inay wax ka jiraan balse wax jawaab ah maysiin ugu dambaynse wuu ogaaday inuu jacayl ka dhexeeyo oo galab ayay maqaaxi ugu soo galeen iyagoo gacmaha is-haysta markuu arkay halku xaal marayo wuxuu isku dayay inuu wax fahansiiyo gabadha balse telefoone kaway ka qaban weyday wuxuuna u diray saaxiibteed balse saaxiibteed waxay u sheegtay inay wiilkan jeceshahay isagana aanay rabin sidoo kale waxay ku tilmaamtay inuu qof xun yahay markuu hadalka maqlayna aad ayuu u cishooday qoftu jeclaa oo cadowgiisi ka raacdayna dhaawac labaad ayay ku noqotay ugu dambayn haloosha ayuu ka xidhay murug fara badan iyo xanuun badan kadibna wuu iska samray balse wiilkii inanta jacaylka ku abuuray markuu gaadhay ujeedadiisi kala reebayna saaxiibkii iyo jacaylkiisii inantii bahdil iyo dagaal ayuu kala dhammaan wayay si uu iskaga reebo ugu dambayna cidla ayuu uga tegay oo marka horena jacaylba uma qabin maalmo kadibna wuu guursaday iyadina waxay noqotay mid qol ka dhex oyda halkan aad naga dawanayso waa deeqsame fadlan nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid magacaygu waa Maryan Adan Xaaji